caawa waxaan rabaa kaliya inaan ka hadlo arrinta Minnesota ka dhacday qaxooti. Anything else kama hadlaayo haddii alla idmo. Marka soo dhawaada comments waa xiray waxa uma jeedo dadku waxay soo dirayaan. Waxaa la dhahaa company-ga ama muxuu ahayd qolada lagu soo oogay dambiga Feeding Our Future waxay waa non-profit oo dalad u ahaa meel non-profit-yada kaleeto oo muxuu ahayto non-profit sidiisaba waa company aan canshuur laga qaadin oo company-yaasha markay samaysan yihiin ayaa waxaa leedahay kana waa company faa'iido aan u samaystay oo waa lagu canshuuraa midna waxaa leedahay waa adeeg bulsho oo non-profit-ka waa adeeg bulsho canshuur lagama qaado qof ma lahan number baa la siiyaa IRS2 kama qaado wax canshuur ah canshuurtooda tax exempt waay marka ayaga marka Feeding Our Future waxay sameynayeen waxay ahaayeen dulaalka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada ee Minnesota iyo dadka cuntada bixinaya oo kaleeto dadka cuntada bixinaya waaye waa makhaayado waxa waaye community centers waxa waaye meel masaajidaha lagu bixinayay marka sidee u shaqeynaysa silsilada isugu xirneed aan rabaa inaan idin sharaxo hadii alla idmo 2020 January ayay war-saxaafadeed soo saartay wasaaradda waxbarashada Minnesota ayadoo dhahaysa waxaan rabnaa dad inay soo buuxiyaan oo codsi soo dirsadaan ka qayb gali doona samarkan soo socda hadii alla idmo programka ah ciyaalka cuntada la siiyo samarka kabacdi waa tii March 2020 uu dhacay waxa la COVID-ka ayaa dhacay marka shuruudda ugu weyn oo tan oo dhan ogolaatay ayaa waxay tahay markii la bixin jiray cuntada samarka oo muxuu ahayto la qaadan jiray samarka waxa lagu saleeyaa dhaqaale kaba soo qaad dadka lacagta soo gashaa ee hooseyso dhaqaalahooda uu liito kale marka qof kasta iskama qaadan karin waxa qaadan karay familada number go'an qaata kali lacagtoodu ay tahay ayaa qaadan karay marka shuruudaas waxa kor u qaaday oo meesha ka saaray COVID-19 waa tii iskuuladii oo dhan la xiray meel walba la xiray markana ilmaha badankoodna cuntada waxaa laga siiyaa waliba kuwa dadka saboolka ama danyartahi ay dhaleen waxa cuntada laga siiyaa iskuulka oo waxay helaan cunto free ah oo muxuu ahayto aysan lacag ka bixinin marka hadii waalidku samarka kaliya ilmahana samarkana programyadana soo baxa marka waxay saaraysaa culays dhaqaale waalidiinta ayay saaraysaa marka barnaamijyadan saasay u samaysan yihiin federal government-ga ayaan laba adood ayaa u qaabilsan kuwa la dhaho child and adult care food program kuwaas sanadkii oo dhan ayay socdaan oo dadka saboolka ayaa loogu talagalay ilmaha waayeelka oo kaleeto kuwana waa summer food programka ayagana labadooda markii la isku daro qarashkay bixiyaan ama wadanka dhanayna ku baxsan yihiin waa laan ka tirsan wasaaradda waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ayay ka tirsan yihiin marka lacag waxaa ku baxda oo budgetkoodu uu yahay labadaas hay-adood 4 bilyan marka taas waaye lacagta meesha ay ka soo gashay lacagta ka imaanaysay marka markii la soo saaray hadalkii ahaa waa la joojiyay oo muxuu ahayto nimankan waa laga shakiyay marka Feeding Our Future waa laga shakiyay dowladda Minnesota gobolka Minnesota dowladiisa ayaa meesha soo gashay markaas iyo waliba wasaaradda waxbarashada meesha soo gashay markaas waxay dhaheen Soomaalidu waxay dhihi jireen waxaan salaada meel iska qaban laadahay literally that's what the government said waxay dhaheen meel iska qaban laadahay arrintan muxuu ahayto company-gan baaxadda uu ku koraayo iyo lambarada sidee yihiin isma laha marka markii la soo eedeeyay ayagiina maxkamaday ku laabteen haweeneyda la dhaho Amy Bark oo xukuntay company-ga la dhaho Feeding Our Future iyo qareenadeedii ayaa maxkamadda aaday marka lacagta dawladda way ka goysay oo musuqmaasuq ayaa lagu soo oogay tani waa goorma waa markii wax yar bila yar ay socotay waa lagu soo oogay kabacdi haddana 2021kii ayaa waxaa laga jiray lacagtii markii laga jiray wasaaradda waxay ku qabatay freeze ku qabatay wixii dhan
xoolihii oo dhan way ka saartay meesha waxay tiri ilaa aad waxyaabo kala duwan aad soo cadaysaan oo kaleeto ma bixinayno maxkamaday tageen maxkamadaa laisla aaday maxkamaddu maxay tahay maxkamaddu waxay dhexdhexaadisaa dadweynuhu waacayo dadweynuhu waa non profitka dadku quudiyo iyo dadkaas iyo dowladdu waacayo waa Minnesota gobolka Minnesota iyo wasaaraddeeda caafimaadka maaha waxbarashada wasaaraddeeda waxbarashada ayaguna so judge-ku u dhaxeeya marka always marka case soo oogaysid oo kaleeto sidoo wadanka u shaqeeyo kale waxa jira wax la dhaho burden of proof culayska inaad wax cadaysid soo ogaha mar walba culayskaas u saaran yahay ani maanta daaqadi wax kugu soo eedeeyo oo aan ku dhaho hiblaayo waxaan igu sameysay ina cadeeyo waay waxaas hadii kale iskama dhihi kartid waxa gaar ahaan markii maxkamadda loo eego marka maadaama gobolka Minnesota dawladiisa ay kuwan musuqmaasuq ku soo eedeysay cadeyntoodii ayaa waxay noqon weysay mid luga leh oo istaagi karta ayadoo gaar ah kabacdi judge-ka Ramsey County jooga ayay case-ku hortagay markaasuu markuu uu soo celin doono in laga qaado cunaqabataynta lacagta laga saaray oo kale kelimadu yiri ayaa jirto oo Soomaaliga u dhiganta oo kaleeto faraska adaa buunshaha hordhigay oo kaleeto oo muxuu ahayd marka waxa xanaaqaysaa camal inuu cun like kelimad I think that's sida lagu fasiro ugu dhow saas waaye bad af Ingiriisi ay ahayd macnaheedu uu yahay wax waad fududeysay markii hore waxna iimaadan cadeynin anigana waxaan ku saleysanahay wixii la hor keeno haddaan rabo aan u jeedo wax inay khaldan yihiin laakiin waa inay tustaa maadaama aad tusi weydayna dooq kale malihi marka waa loo soo daayay kabacdi nimankii waxay feeding our future waxay sameeyeen 2500 oo cusub oo meelo cuntada lagu bixiyo ayay diiwaan galiyeen haddana mar kale lambarkoodii wuu sii socday 2000 July 23 2021 ayay 2000 iyo muxuu ahayd 500 diiwaan galiyeen marka maxaa la isticmaalay si ay u shaqeysay waxay u shaqeysay maadaama ciyaalka guryaha ay joogaan oo kale magacyo tiro badan la qoray maxaa meesha ka baxay shaqaalihii dawladda oo ka shaqeyn jiray xafiisyada oo waxaan ilaalin jiray kulligood Minnesota iyo guryaha ka soo shaqeynayaan Minnesota-na waa gobol dimuqraadi macnaheedu waxa waaye marka way ka ruulkeedo kaleeto waliba covid-ka markay tahay xadidaadaha la saaray dadka covid-ka sida u saameynayo kaleeto yes dawladda federaalka xukunta laakiin gobolku ama magaalada ama degmada sharciyo kala duwan ay ka soo saareen sida cudurka loo xadido Minnesota marka gobolada red-ka la dhaho ama gaduudka oo xisbiga jamhuuriga hoosaga sida Kanaga oo kale Ohio kale way ka sharci duwantahay soo gobolada dimuqraadiga ay awood ku leeyihiin shuruudahooda covid-ka qaabilsan way ka adkaayeen kuwan kaleeto marka taas maxay keenaysaa dadkii inay guriga joogaan dadkii markay guriga joogaan shaqaalaha xafiiska ma fadhiyo also mid kale ayadana dhacday waxa dhacday waa tii May 2020 la dilay wiilkii madowga ahaa George Floyd taasoo keentay barakacaad u ballaaran oo dadweynaha ay u kaceen cadaaladda oo justice loo kacay dawladda marka waxa saarnaa culays weyn oo laba culays marka nimanka saarnaa dawladda labada culays maxay ahaayeen midna covid-ku ka imaanayay midna wuxuu ka imaanayay George Floyd oo ahayd dad waxa jiray cadaalad darra jirto which is true waa run gobolada waxa lagu soo eedeeyay booliiska arrin aad u fara badan oo adduunka dhan gaartay ayaa Minneapolis ka bilaabatay waliba oo horumar badanna way keentay waxay alisi diiradda saartay xadgudubka wadankan ka jira si aysan arrimihii ama dhacdooyinkii ka horeeyay aysan u saarin diiradda ayay u saartay taasna way jirtay marka dadkan barasharkaas ayaga uu saaran yahay ayay muxuu ahayto ay indhaha kaba soo qaad marka maadaama lagu soo celiyay maxkamadii ay ku guuleysan waayeen barasharka ama culaysku uu ka imaanayo covid iyo muxuu ahayto meesha la dhaho dadka George Floyd arrintiisa ay ka imaanayso xoogaa gadaal u baxday marka dawladda gobolka Minnesota markay gadaal u yara baxday nimankan wixii judge-kii ayaa soo xukumay wuxuu yiri nimankan hadda lacagtooda cunaqabateynta la saaray laga qaado
markii laga qaaday kuwa hor la diiwaan geliyeen everyone and their mama like qof kastay diiwaan geliyeen maxaa kamid ah maqaayadaha waxaa kamid ah meelaha muxuu ahayto meesha waraaqda ay soo saartay wasaaradda cadaaladda Justice Department-ga waxaa ku jiray maqaayad aad u yar oo meel yar ku taalo tuulo ah oo dadka ayada dhanba joogo ay aad u yar yihiin in looga kireystay ninka lacag $40,000 oo la yiri aan isticmaalno meesha naagtan marka Amy ayada waxaan xukuntay waxay tiri soo qora soo keena lama fiirinin waa la geliyay magacyada xagee ka yimaadeen waay marka magacyada waxay ka yimaadeen website laga soo saaray website-ka muxuu leeyahay waa gelinaysaa waxaa leedahay magac hebel iyo qiyaas uu qiyaasaya magac isku toosan uu ku keenaya because magacyada aadanaha blue cagaar iyo jaalle saddex magac qof uma noqoto marka website-kaas oo kale isticmaaleen mid kale fraudka waxa ayadana wax weyn ku ah waraaqahay dhiibayeen oo kale markii wax bixinay sidoo kale ama lacag bixinay sidoo kale lambaradu waa inay kala duwan yihiin sababtoo ah cunuga jirada maanta ay too family meel kala ku maqan qolo kala jirtay ayaga numberkooda waligiis isma bedelin qoladan ka soo qaad meeshaan ay too waxa site kan waxay qortaan maalinkii 1,000 qof inay cunto siiyaan 7 days a week marka isma bedelin 1,000 qof weatherka imaan karta waxa imaan kara jiro waxa imaan karta ilmihiyo maqan a lot of things ayaa saameeya in numberadu isbedelaan markuu numberku marna kor u kaco marna hoos u dago that makes sense sababtoo aadanaha behavior-koodu wax saan ama aadanaha behavior-koodu waa wax kor iyo hoos u kaca oo marna inuu aad u bato marna aad u yaraado that's one thing oo dawladda soo jeediyay parent ma lahayn oo parentkoodu muxuu ahaa in 15,000 qof aan siina ama 10,000 ama 20 qof whatever number ay qorteen inuu exact uu numberku ahaa website-kaas inay isticmaaleen in lacagihii markii ay qaateena ay ku sameeyeen ay hanti aad u tiro badan oo biriqeeda badan yahay sida baabuur tiro badan guryo vacationo ay ku sameeyeen marka maadaama departmentii Minnesota lagu soo celiyay case-kii oo Ramsey County judge-kii joogay uu soo celiyay federal government-gii haddana lagu ceshay case-kii oo marka federal government-ga way ka awood badan tahay muxuu ahayto nimankan la dhaho gobolka markii nimankan musuqmaasuqa la soo oogay oo la bilaabay ayaa guryaa la galay Minnesota ku yaalo oo dad Soomaaliya ay degan yihiin 2 nin oo ku jiray dadkii laga qaaday baasaboorka 2020gii ayaa waxay sameeyeen March 2022 waxay buuxsadeen applicationno ay leeyihiin waxa naga lumay baasaboorradii baasaboor replacement ayaan rabnaa marka haddii aan la gelinin muxuu ahayd alert ama gambaleel aan lagu dhajin qofka applicationkiisa oo kale ma soo baxayso then wasaaradda dibadda waxay soo ogaatay dadkan in baasaboorradooda FBI-da ay qaadatay ee aysan ka lumin labadoodaba midna waxa gobolada meel kala duwan laga qabtay labadoodaba waxay goosteen tigidho one way oo ay rabeen inay wadanka uga baxaan oo kaleeto marka midna wuxuu yiri wuu qirtay oo yiri fraudkii lagu soo oogay wuu ogolaaday midna wuxuu yiri guilty maahi labadaas ayaa ugu horeysay dadkii la xiray oo case-kan ku lug leh oo ku shuqul leh labadoodana case-kan ayay lagu kula jireen oo markii hore baasaboorka laga qaadayay oo la rabay in laga xiro ayna muxuu ahayd case-kan baaritaankiisa socday marka labadaas nin ayaa ugu horeeyay wigi barka ka horna waxa la xiray 49 uu sii maray numberka laakiin wuu soo badan yahay oo gadaal ayuu aad uga soo badan doonaa marka dawladda waxay qaateen shallo basically intaas waxay ku maqnaayeen inay case-kan intiisa at least uu keenaan
markay warrant waxa la dhaho ama warqada guryaha lagu galo kale marka dawladda soo qaadanayso xakinka ka soo qaada xakinka waa dhexdhexaadiye xakinka waa in war go'aan loo sheegaa oo la dhaho tan cadeyn hebel ayaan haysanaa si aan qofkan asoo wixii ku dhex jira aan u qabano gurigiisa uga soo qabanuusan nooga cararin marka intaan dawladda waxay ku maqneed cadeyntii ay jaajka horgeyn lahayd siin lahaa amarka ah inay guryaha galaan oo warrantiga saxiixi lahaa maxay sameeyeen surveillance ay sameeyeen oo muxuu ahayd dadkii daba galeen waa la ilaalinayay federal governmentiga ilaalinaysay waxay kaloo sameeyeen waxay tageen countyada ama degmooyinka kulligood Minnesota ku yaala waxay dhaheen school system hebel meeqa cunug ayaa ka diiwaan gashan sababtoo ah wasaaradda waxbarashada way haysaa inta cunug oo muxuu ka diiwaan gashan school systemkaas marka tiradii la yiri cunta la siiyay iyo tirada wasaaradda waxbarashada u diiwaan gashan oo iskuulada soo hoos gasha ayaa kala badatay waxa badatay dadkii la abuuro feega ahaa wasaaradda cadaaladda waxbarashadana lambarkeedu uu ka hooseeyay taasay ku cadeeyeen hantiyaalo aad u tiro badan bay qaarkood wadanka banaankiisa waliba sida Afrika oo kale ayay ka gateen marka intaan oo dhan dadkan waa la daba socday markii la daba socday case-ka marka xiritaankii waxay dhacday September ugu badnaa qaar qofkii ugu dambeeyay wiil buu ahaa waxa laga soo qabtay kii qofkii 49aad Chicago laga qabtay waxyaabaha aan la yaabaysaa marka waxay yihiin meelaha ku jiro kaleeto waxa kamid ah masaajid oo cuntada lagu bixinaayay waxaa jira dawladda waxa la dhaho forfeiture gadaal inay hantida u qaadato si lacagtii la lunsado ay u soo celiso kaba soo qaad $10 dhunsatay adiga dawladda wants to inay wax lacagta ay qayb ka soo celiso ilaa hum $2 ahaato ilaa hum $1 ahaato dawladda waxay sameynaysaa hanti kasta oo aad leedahay way xaraashayaan markay shan lacagtii 250 milyan ka badnayd ayaa wax laga soo celinayaa waa daba qaba camal marka hadda case-ka marka dadkii waa la xirxiray intooda badan qaarkood waxa lagu soo daayay damiin baasaboorradoodii waa laga qaaday marka case-ka marka hadda xagee uu aadi karaa hadda wuxuu aadi karaa dawladdu marka maadaama ayada dambigan soo ogtay waliba FBI-du ay keentay in ay soo inay cadeeyaan sida wax u dhaceen sababtoo ah in warqad lagu siiyo aad guri ku gasho waa one thing oo very like taas waa fududahay ina inta qof dambi ku soo oogto haddana aad ku hesho oo aad xabsi u dirtana waa sheeko kale ka duwan laakiin midda warqadaha ay bixiyeen oo invoiceska ama warqadaha lacagta lagu codsanayo kale waa saxiixan yihiin warqadahaas oo kale already kuwaas oo kaleeto raadin zaa'id uma sii baahna waxa la isbarbar dhigayaa marka lambaradii meeshan ku qornaa iyo lambarkaad soo gudbisay oo waraaqaha kugu qornaa taas waa already faraka yaala waay markay dawladda dambigii kugu hesho ee kugu soo dhameystirto oo kale talaabooyinkii qaadayso waa dadka inay xabsi u dirto aan isnaada xakaana xabsi oo easygo county jailka qof intuu gaari meel ku dhuftay oo kale meesha la soo fariisinayo federal government muxuu ahayto xabsigeeda oo kale waay and those are not a joke waxay sameynaysaa dawladda marka ani midda ugu weyn oo itaabatay Soomaalidana aad u saameyn doonta ayaa waxay tahay masaajidda hadda masjid meelaha la soo magacaabay oo lacagta ugu badan lagu soo oogay waxa kamid ah masaajid la dhaho masjid ad-sunnah oo la shaqeynaya kuwa kale oo la dhaho partners in nutrition ayaguna feeding our future waa la baabi'iyay mar intaan case-kan la soo dhameystirin oo bishii la soo dhaafay ka hor ayaa dissolution lagu sameeyay oo la kala diray kuwa kala meesha soo galay ayagana marka kuwaas ayaguna waxay damaano qaadeen oo sponsor ka ahaayeen dad aad company aad u tiro badan Bradford Cafe meel la dhaho kale 855,330 waxa ayaga damaanad qaaday Discovery Charter School kuwa la yiraahdo kale ASA Limited 619,000 ayaguna Discovery Charter School kaasoo kale ayaa damaanad qaaday
Bravo Restaurant 618,399 ayagana Discovery House galeen. Youth Inventors Lab 409,000 ayagana Feeding Our Future House galeen. And Youth Leadership Academy 365 and Feeding Our Future ayay hoos galeen ayagana. Addis Foundation 332 ayaguna Partners in Nutrition kuwa la dhaho ayay hoos galeen. Masjid Al-Sunnah 232 Partners in Nutrition ay hoos galeen. And kuwan ayagana Darul Faruq waa 280 iyo 5,000 Feeding Our Future. marka meelahaas oo dhan any address ay marka dawladda soo sheegto addressku wuxuu ahaan karaa masaajid wuxuu anything u ahaan karaa ay ku soo qeexdo in masaajidkan uu dambigan la galay lacagtan la lunsaday uu ku lahaa shaqo addresskaas wuxuu noqonayaa hantida ay dib dawladda u qaadato hantida ay dib dawladda u qaadatana maxay ku sameeyaan way xaraashaan marka masaajidada maamooyinka masaakiinta ah oo muxuu ahayd third shiftiga ka soo shaqeeyay oo ilaahay og yahay sida lagu dhisay waliba markaan wadamada North America aan imaanay qayb kamid ah hadii cadeyntu ay dhameystiranto kaleeto ama khayad ha ahaato any address ku xiran waa la xaraashaya dawladana dib u qaadanaysa taasna marka waxa way wax Soomaalida meel kasta joogto aad u saameynaysa midaasna way mid aniga ana aad uga naxay qofkii waxaday hal xiro ada tuuga data waa lagu xiraaya and the other thing is qaarkoodna ilmay leeyihiin dadka ilmay leeyihiin kuwaas ilmahaas waxa ma galabsan waaridkoodii ku waayeen and community-ga ama anagoo dhanna waxaana soo gaaray dhaawac aad u tiro badan meel kasta North America ka joogno laakiin midda mar walba fadeexad iga degi weysa ayaa waxay tahay hadii masaajida addressyadooda cadeyntu ay ku soo baxdo oo dawladdu cadeyso dhameystirto inay gali doonaan meelaha la xaraashi doono masaajidku real estate kaliya ma aha masaajidku waa symbol wuxuu u taagan yahay umad buu u taagan yahay umad buu matalaa wuxuu matalaa dadkan muslimka ah waa meel la yaqaan waa guri lagu cibaado house of worship waay marka hadii ay musuqmaasuqi uu galay house of worship-ka oo berina dawladda ay qaadan karto haday soo cadeyso oo bixiso wax kale oo haray meesha ma jiraan nothing else oo meesha ku haray yes qofkii dad badan la xirxiray oo aad u tiro badan kuwa badan oo kalena caseska way ku soo socdaan aliiro oo waa la daba taagan yahay oo baaritaan ku socdo hadda sida la sheegayo la isla dhexmarmarayo ayaa waxay tahay dad kale oo hor leh ayaa la soo galin ayaa ayagana lagu soo dari doonaa magacyadooda laakiin ma cadda wasaaradda cadaaladana arintaas kama soo bixin oo ayaga waxay sheegeen maahan marka case-ka xagee buu aadaa case-ka wuxuu aaday dawladda waa inay soo cadeyso meeqay qaadanaysaa sanaday qaadan kartaa long time because 250 million it's lacag yar ma ahan dawladda waa inay lacagti adduunka ku bixiso mid kale inay cadeyso soo intii baxday in lamida ama ka badana kaga baxayso dawladda inay dadkan soo qabato inay soo xirto inay soo cadeyso guryaha hantida la leeyahay lacagahana lagu gaday la gado dadkii la kala saaro qaar waxa la siin doonaa immunity waxa la dhaho oo haday information kay bixiyeen oo kaleeto uu noqdo information macluumaad dad ayaga ka tiro badan ama case kale cadeyn la ee dawladda ay muxuu ahayd ay information ka soo qabato kala ayaga waxa laga yaabaa in laga fududeeyo kale marka waa mid ugu weyneed oo wadanka waliba lacag noocan oo kala oo la lunsado lacagtuna intaas way ka badan tahay laakiin inta hadda la qoray ayaa intaas ah waxaan oo dhan ani waxa ay dhici weysay hal qof oo dumar ah oo waliba marka akhrisid the way u sameysay oo kale waxa it was not even that smart wax oo muxuu ahayd sophisticated oo sariiqdooda ay adag tahay oo qof kasta uu arki karin ma any person oo akhriyo warqadaha ayaa wuxuu arki karaa waxyaabaha isticmaashay oo kale waxaad u fudud inay ahaayeen waxay ka faa'iideysatay waqtiga waxay ka faa'iideysatay immigrantska waxay ka faa'iideysatay Soomaalida diinta madowga all of those things oo la isku daray ayay ka faa'iideysatay meeshay furatay shabaqayna dhigatay basically everybody else oo soo hoos galay inuu u tagay marka do the people oo ayaga la qof la siray ma jiro qof walba warqada asaga saxiixay dad qof walba
ilmaha saqiirka oo magacyadooda qaal runta laga sheegay qaar beenta laga sheegay yes kuwaas dambi kuma laha laakiin qof weyn hadaa tahay oo aad waraaqihii aad saxiixdood meesha gelisay oo dambigeeda am waa la isiri ama la ima sirin you can say like waa isku aadin kartaa little bit but hadaa dambiila tahay laakiin more than anything else markii masaajidada ama dugsiyasha meelaha masaajidka Soomaalida ay ka muuqato kaleeto oo meelaha bartilmaameedka ummadda muslimka ee soo hoos galaan tan oo kale ayaa waxay tahay dharbaaxa aad u tiro badan marka hadee wax kale ka soo baxaan hadii alle idmo oo muxuu ahayd uu case-ku sii furfurmana more waa idin la socodsiin doonaa and I think intaas leeyahay laakiin because it has a lot of papers raaqa aad u tiro badan ayuu leeyahay Columbus waxaa kaga jirta laba qof kaga jirta oo labadooduba waa dambiga dadka lagu soo oogay ay ku jiraan and anybody else ay taabatayna gadaala kuwa kalena wixii lagu soo daray looga soo dari doonaa haday jiraan oo kale ama intaana deeraban ku keenayaan oo lama oga taas dawladda wax ka soo baxay waxa la isla dhexmarmurooyo war la isla dhexmarmurooyo waa dawladda wasaaradda cadaaladda waxba ma sheegin laakiin waxay abuurtay diirad iyo toosh aad muxuu ahayd weyn oo wadanka dhan la soo fiirnay sababtoo even odayga governorka Minnesota way saameysay sababtoo wuxuu eedeeyay maxaakinkii joogay Ramsey County arbaaxana ku soo laabatay laftarkiisa wuxuu yiri adaa waxaan ogolaaday markaas wuxuu yiri ani warigeeyba idin ma dhihin wixiina soo cadeystaan in idin yiri adaa meesha soo galay oo farahaaga dhaadheerka badan meesha soo galiyay way ku soo laabatay because sababtoo 250 milyan la xaday marka waxa la isweydiinayaa dawladdu waxay leedahay albaabo kala xirxiran marka albaab hebel yaa furay xaakinkiina way ku soo laabatay wuuna isdifaacay marka even dawladda dimuqraadiga oo Minnesota waxay ku tahay siyaasad ahaan dharbaaxa aad u tiro badan ayay ku tahay intaas oo ku keenaa